daawadayaal maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qiso ama dhacdo cajiiba. Waxay bilaabmeen dhacdooyinka qisadani sanadkii 1972 waxayna ka bilaabmeen caasimadda dalkaasi Uruguay ee Montevideo taasoo ku taalla Ameerikada Koonfureed. waxaa jirtay xilligaasi koox ciyaarta kubadda cagta oo taabacsaneed ama raacsaneed mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalkaasi Uruguay. magaca kooxdana wuxuu ahaa All Christian, waxayna rajeynayeen inay la ciyaari doonaan koox kale oo kasoo jeeday caasimadda dalkaasi Chile ee Santiago. intaa kadibna jaamacadii ka mas'uulka ahayd kooxdan ayaa go'aansatay in kooxdaasi ay u kireeyaan kaligood diyaarad u khaasa si ay ugu safraan ulana soo ciyaaraan kooxdaasi kale kasoo jeeda dalkaasi Chile. sidoo kalena mas'uuliyiinta magaalada Montevideo ee ka socotay kooxdani ayaa iyaguna dhankooda ka damaanad qaaday inay bixin doonaan dhammaan kharashaadka iyo sahayda ku baxaysa safarkaasi. diyaaradda loo kireeyayna waxay ahayd diyaarad nooca dagaalka oo magaceeduna ahaa Uruguay 571. qorshuhuna wuxuu ahaa inay tagaan magaalada Santiago oo ay halkaasi kula soo ciyaaraan kooxdii kale la ballameen. intaa kadibna ay ku soo noqdaan guryahoodii iyo dalkoodii Uruguay si ay u sii wataan waxbarashadoodii iyo hawlahoodii kale. wuxuuna ugu badnaan safarkani qaadanayay 4 maalmood oo kaliya. intaanay diyaaradii ka duulin madaarka caalamiga ee Carrasco ee magaalada Montevideo ayaa wuxuu sheegay duuliyay diyaaraddu ciyaaryahanadii inay jiraan 10 kursi oo ka bannaan diyaaradda oo ayna soo kaxaysan karaan eheladooda iyo asxaabtooda haday u baahdaan. dabcan dhammaan ciyaartooydina way ku farxeen arrinkan, waxayna soo kaxaysteen qaar ka mid ah eheladoodii iyo asxaabtoodii. waxaana ku jira dhalinyaradaas ciyaartooyda ah odaygan oo waqtigaasi dhalinyaro ahaa laguna magacaabay Nando Barrado oo isagu wacay markii uu maqlay warkan hooyadii iyo walaashii. dabcan walaashiina waxay jirtay meelahaas 17 sano wayna soo raaceen. waxay ka duushay diyaaradii madaarka Carrasco 12 bishii Oktoobar sanadii 1972. dadkii diyaaradda gudaheeda saarnaana waxay gaadhayeen 40 qof oo ay ka mid ahaayeen shaqaalihii diyaaradda iyo sawirqaade. dabcan hadduusan sawirqaadahaasina saarnaan lahayn diyaaradda maynaan helnayn sawiradan aan arkayno oo ah sawiradii sida saxda ah looga qaaday dhacdadan. dabcan jawigan wuxuu ahaa mid wanaagsan oo aad u degan ilaa ay u soo dhawaadeen silsilad buuro baraf ah oo lagu magacaabo buuraha Andes. buurahana waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah buuraha ugu halista iyo khatarta badan ee ugu weyn adduunka. markii ay diyaaradii soo gaadhay buurahana ayuu xumaaday jawigii, waxayna go'aansadeen inay ku degaan oo ay xoogaa yaroo nasiimaa ku qaataan magaalada u dhow taasoo lagu magacaabi jiray magaalada Mendoza. ilaa intuu ka hagaagay jawiguna ay ku sugnaadaan magaaladan kadibna ay sii wataan safarkooda. buurahan lagu magacaabo buuraha Andes waa buuro aad u dhaadheer sida idinkaga muuqata muuqaalkaba, waana silsilado buuro ah oo fidsan ilaa 500 kiiloomitir oo dhul ah. waxayna buurahan maraan dhammaan dalalka dhaca qaaradda Koonfur Ameerika. dhererkoodana waxaa lagu sheegaa 7100 kiiloomitir oo taag ah, halka sarreyntooduna ay ka badan tahay 4000 oo mitir. waxaana sidoo kale lagu tiriyaa inay ka mid yihiin 10 buurood ee ugu dhaadheer dunida. waxayna fidsan yihiin buurahani tiraba 7 dowladood oo kala ah Argentina, Ecuador, Bolivia, Peru, Chile, Colombia iyo Venezuela. meelaha si kooban dhammaan wadamada ku yaala Ameerikada Koonfureed way fidsan yihiin buurahani. waxayna sugeen rakaabkii saarnaa diyaaraddu inta uu wanaagsanaanayay jawigu, laakiin nasiib xumo muu noqon jawigu sidii doonayeen. micnaha muu wanaagsanaanin. habeenkaasna waxay u hoydeen magaalada Mendoza. subaxii maalintii labaad oo taariikhdu ku beegnayd 13 bishii Oktoobar waxay dhammaan dadkii saarnaa diyaaraddu isla qaateen inay duulaan. ugu dambeyntiina mahadda Ilaahay ugu wanaagsanaaday jawigii wayna duushay diyaaradii. dabcan sidaynu hore soo sheegnay diyaaraddu waxay ku sii jeeday magaalada Santiago si ay ciyaartooydu la soo ciyaaraan ciyaar muhiim ah koox kale oo joogtay dalkaasi Chile. duuliyaha diyaaraddan waxaa lagu magacaabay Julio Ferradas, wuxuuna ahaa duuliye khibrad dheer u leh hawshan cirka. waxaana lagu qiyaasay muddada uu waday diyaaradaha oo ku jira hawada sare muddo gaadhaysay 5200 saacadood. wuxuuna asal ahaan ahaa duuliye ciidan oo diyaaraddan u waday waxay ahayd diyaarad ciidan. waxaana sidoo kale la sheegaa inuu ku dulduulay buurahan dushooda in ka badan 20 jeer. sidaa darteedna waxa u fududeyd inuu dul maro buurahan. laakiin maxay kaaga taallaa? duuliyahan wuxuu go'aansaday intuu ku jiray safarkan inaanu si toos u dulmarin buuraha Andes, laakiin taa beddelkeeda uu daba maro marana marin u dhow magaalo lagu magacaabo Carico. wuxuuna sameynayay waxaas oo dhan buuraha Andes oo aad u dheeraa. hadduu rabo inuu si toos u dulmaro buurahana waxa ku khasab ahayd inuu kordhiyo sarreynta diyaaradda uu aad ugu fogaado cirka. sidaa darteed ayuuna u doortay wadadan kale. kooxdii ciyaartooyda ahayd ee la socday diyaaraddana iyaguna waxay ahayn qaar faraxsan oo ka doodaya kana sheekaysanaya ciyaarta ay ciyaari doonaan, laakiin kumay baraarugsanayn waxbana kalamay socon khatarta ku soo wajahan iyo khaladku galay duuliyaha u waday diyaaraddu. wadadan uu doortay duuliyuhuna waxay ahayd waddo aan si hagaagsan waxba looga arkayn oo ay buuxlaafiyeen daruuro. taas micnaheeduna waxay tahay
muu arki karin duuliyuhu gebi ahaanba meesha ay ka xigaan buuruhu. dabcan waqtigaasna tiknoolajiyadu may horumarsanayn manay ahayn sidan ay tahay maanta. marka haddii hala yaabina khaladkan ka dhacay duuliyaha. si kastaba ahaatee duuliyahan wuxuu aaminay inuu dhaafay oo ka gudbay buurihii Andes, wuxuuna u leexiyay diyaaradii dhanka waqooyiga oo xaggii buuraha ah. muddada ay badanaa diyaaraduhu kaga gudbi jireen buuraha Andes waxay ahayd 12 daqiiqo, laakiin duuliyahan wuxuu aaminay in buuraha uu kaga gudbay 3 daqiiqo oo kaliya. xitaa qalabkii digniinta ee ka shaqeynaya diyaaradda gudaheeda wuxuu sheegay inay wax khaldan yihiin. laakiin maxay kaaga taallaa duuliyihii ayaa isadkeeyay, wuxuuna ku sii adkaystay malihiisii ahaa inuu ka gudbay buuraha Andes. sida xaqiiqda ahna buurihii weli muu dhaafin, laakiin taa beddelkeeda hore ayuu sii dhexgalay bartamahoodii. adigu si kastaba ha noqotee duuliyihii wuxuu sii waday diyaaraddii isagoo u malaynaya inuu si toosa ugu jeedo magaalada Santiago. waanuu sii socday ilaa uu ugu dambeyntii is arkay isagoo oo dhex maraya bartamaha buurihii Andes. wuxuuna yidhi Nando oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaraddu, si kadis ayaa waxaan u dareemay inuu duuliyihii sameeyey khalad aad u weyn. markii ay arkeen dhammaan rakaabkii buuraha hareereeyey iyo waddada cidhiidhiga ay marayaan iyo weliba diyaaradda kolba dhan loo dhufanayo, ayay dareemeen in maanta ay u jeesan doonaan xaggii loo badnaa. adigu sikino kooban oo duuliyuhu diyaaradda kolba dhan u leexinayay ayuu ugu dambeyntii go'aansaday inuu kor u kiciyo, laakiin wuxuu ku kadsoomay garabkii midig oo duqeeyey figta mid ka mida buurta. waxayna diyaaradii ku soo duldhacday buurta dhankeeda sare. ugu dambeyntiina hadda Ilaahay u istaagtay diyaaradii iyadoon weliba qarxin ama guban, kaliya ay soo gaadheen burbur xoogan. waxayna ku dul istaagtay dusha buurta iyadoon dhan uga dhicin, laakiin xawaarihii aadka u sarreeyay ay ku socotay diyaaraddu awgii markii ay ku soo duldhacday buurta waxaa isla markiiba amba baxay 7 qof oo ka mid rakaabkii, waxaana soo hadhay oo badbaaday 3 qof. markaan leeyahay badbaaday ugama jeedo inaanay jirin wax dhaawacay. waxaa jira dad ay soo gaadheen dhaawacyo halisa oo xunxun laakiin weli nool. waxayna ku istaagtay diyaaraddii sarreyn gaadhaysay 11,800 fiit, waxayna ahayd xaaladoodu mid aad iyo aad u adag. dhammaantoodna waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah oon waxba ka garanay xaaladan ay ku jiraan. waxaana ka mid ahaa dadka dhaawaca ee badbaaday ninkan oo lagu magacaabi jiray Nando, waana ninkii aan kaga soo sheegaynay bilowga qisada. Nando wuxuu saarnaa kursiga ugu dambeeya diyaaradda. markay soo dhacdeen wuxuu ku soo duulay meesha u horeysa ee diyaaradda. duulihii diyaaradduna wuxuu ka mid ahaa dadkii markiiba dhintay, laakiin caawiyihiisii ayaa ku sii jiray daqiiqadihii ugu dambeeyey ee noloshiisa. intaanu dhiman ka horna wuxuu yidhi hadal culus oo faa'iido u ahaa dhammaantii kale badbaaday. waxaanu yidhi hadda waxaynu ka soo gudubnay magaalada Kirikow. hadalkan uu sheegay caawiyaduna wuxuu ahaa shayga keliya ay ku badbaadi karaan ama ay ku ogaan karaan meesha ay joogaan. marka intii badbaaday soo qaadatay maabkii iskuna dayeen inay eegaan meesha ay joogaanna waxay ogaadeen inay intii hore ka fog yihiin meesha ay u socdeen oo ahayd waddankaasi Chile.